ayaal waxaan doonayaa Soomaaliya waa lagu soo duulay dalka Soomaaliyeed ee maanta u hiroobay inay istoortaan deganaansho iyo xasilooni siyaasadeed si ay u helaan waa lagu soo duulay yaynaan warmoog noqonin aynu ogaan xaaladda dalkeenu ku sugan yahay waxa socday baryahanba duulaan tartiib ah oo xarkaha soo goostay iyo faragelin qaawan iyo khalkhal amni oo ay Kenya dalka Soomaaliyeed ku wado la garab taagnay baryahan dambe oo dhan marxaati ka ahaydeen markii dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisu isu yimaadeen oo ay dooneen khayraadka ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan shirkii London waxa ay keeneen dood cusub oo ay dhulkeena ku murmaan oo ay badeena ku murmaan oo ay yiraahdaan waa xadgudub dhuleed waa duulaan dal lagu soo duulay dabadeedna ay u yeedhaan safiirkoodii iyagoo diidan horumarka iyo horukaca dalkani uu samaynayo si xaaladda loo dejiyo madaxweynuhu safar buu ku tagay Kenya inuu kala hadlo dhageysto waxa ay walaalaheen ka cabanayaan oo ay ka mid ahayd wajeer oo caqabad ku ahayd safarka madaxda Soomaalida in laga qaado dadku isdhex galaan isu socodka la furo arrinta la dejiyo nabadeyn iyo odayeyn la sameeyo maadaama geeskan Afrika aynu ku wada uumanahay xiriir diblomaasiyadeedna la sameeyo oo midho dhal ah oo caafimaad qaba xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeedna markii ay rabaanba oo diplomatic passport sita inay ka degi karaan airportka Nairobi markii heshiiskii la saxeexay wax yar kadib waxa marxaati ka ahaydeen wasiiro iyo xildhibaano lagu bahdilay airportka Nairobi habeenna u hoyday dib loo soo celiyay Soomaaliya kama yeelan ahayn waxa kale oo dacwadda badda oo gardarro ah oo gardiid in badan ay ka tahay Kenya oo ina ka soo qeybgelin ama marar badan ay dib u dhigtay codsatay in dib loogu dhigo ku garnaqday sababo marmarsiyo ah arrimahaas oo dhan ah duulaan dhulkeena lagu soo duulayo waxa dheereed burburin dhaqaale iyo hanti dadweyne hormuud taawarada ay leedahay marar badan in ciidanka Kenya uu burburiyay waa ka warqabteen marar badan iyadoo cidna ogeysiin in ciidanka Kenya ay ka baxeen dalkeena oo ay iskaga dhaqaaqeen si loo loogu loogo kooxaha nabadiidka marxaatibaad ka ahaydeen intaas oo dhan waxaynu muujinaynay dulqaad dabacsanaan iyo inagoo ilaalinayna jaar wanaaga walaaltinimada iyo nabad ku wada noolaanshaha geeska Afrika in geeska Afrika colaad iyo xiisadii ka taagnaato inaga la inooga sheekayn maayo waan soo marnay waan soo aragnay dhibka ay leedahay hayeeshee waxa ay Kenya sii wada mar walba in cadaadis xad dhaaf ah ay samayso waxa ka warqabtaan walaalkeen in ay culays madaxweynaha Jubbaland culays xad dhaaf ah ay saareen kula dirqiyeen kula cadaadiyeen in uu dood cusub ka keeno heshiiskii qaybta uu ku lahaa waxna uu ka saxeexay 17 September markii waxyaabahaasi oo dhamay ay dhaceen markii ay Kenyaanku alamtara soo dhaafeen waxa qasab nagu noqotay in aynu safiirkeena u yeerano xiriirka diblomaasiyadeedna si rasmi ah xalay ugu dhawaaqno laga bilaabo maanta inaan u jarnay garnaqsigu madaxweynuhu hogaamin doona ashkata dheer baanu dawlad goboleedka igab aan u qornay Djibouti la isugu dagi doono garnaqsigeena la tagi doono gardarooyinka guracan ee ay Kenya inagu wadana lagaga garnaqsan doono waa maan guracan iyo garasho jaan in mar walba daandaansiga sidaas ah ee naf ah ee nabad ah ee dhaqaale ah ee nolol ah ee siyaasad ah ee faragelin ah ee madaxweyne ku-xigeenka Kenya maalintii dhaweyd fagaare madal furan uu kaga hiraabay